agaasimiye hore cisbitaalka guud ee magaalada Ceyrgaabo Axmed Yuusuf Maxamed oo maalnimadii shalay madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland ayaa maanta xilka si kumeel gaar ah ugu sii wareejiyay madaxa shaqaalaha cisbitaalka Ceyrgaabo koorinta aanu xilka wareejin maareeyaha cusub ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland waxa kormeer uu ku weelinayo barasaabka gobolka Sanaaga iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaaga ay ku soo mareen qaybaha uu ka kooban yahay cisbitaalka guud ee magaalada Ceyrgaabo sidoo kalena waxa ay booqdeen goobo ay yaaleen qalab caafimaad ay soo dhiibeen jaaliyada dalka Sweden ugu horeyna waxa halkaasi hadalkiisa kala dambeeyay madaxa shaqaalaha cisbitaalka guud ee magaalada Ceyrgaabo Khadar Xasan Weyd iyo sidoo kale Jibriil Hildi oo kamid ah mas'uuliyiinta cisbitaalkaasi iyo waliba sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaaga Dr. Naasir Cabdiraxmaan waxaan munaasabadan daaran tahay oo runtii maanta munaasabadan ku sii sagootinayna agaasimiye hore cisbitaalka Ceyrgaabo Axmed Yuusuf Maxamed isla markaana iminka ah maareeyaha hay'adda wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaan anigoo ka wakiila dhammaan shaqaalaha cisbitaalka iyo mas'uuliyiinta cisbitaalka waxaan runtii aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqaynaa muddadii aan soo wada shaqeynayna agaasimiye hore cisbitaalka Axmed Yuusuf Maxamed oo nu ducaynayna meesha uu gaadhayna ilaahay baan uga rajaynaynaa meel ka sii wanaagsan oo ka sarreysa inuu gaadho aanu hoos uga soo dhicin baanu ilaahay uga rajaynaynaa Axmed Yuusuf intuu nala shaqeynayay cid waliba way qeeysaa inuu cisbitaalku isbedel muuqda ka dhacay cid waliba way qeeysaa isaga xulana insha Allah bidmilaahi kariim waxa ugu fiican ee dadku ay sheegaan waxa weeyaan ilaahay ku goosto aamin insha Allah ilaahayna ku fududeeyo shaqada iyo xilka mas'uuliyadda inta markaan kaga baxo midda labaad waxay noqonaysaa insha Allah bidmilaahi kariim waxa sii jooga hadda la sii wareegay waxa weeyaan waa maamulaha cisbitaalka waa Khadar Xasaadan waxaan aad u aaminsanahay isaga hadda ugu waayaragsan inta cisbitaalka ka jooga insha Allah bidmilaahi kariim waxa weeyaan waa jaaliyada Soomaaliland ee reer Sweden oo isku dayay wixii baahiyaadka ah intii aan islaha mala asaasiyaadkii ugu muhiimsanaa ee cisbitaalku shaqeyn lahaa ayay noo soo direen hadii alla ka dhigo waxa kale oo mahad celinaynaa cid kasta oo hawsha fududeysay oo ka qayb qaadatay sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay Axmed Yuusuf Maxamed agaasimiye hore cisbitaalka guud ee magaalada Ceyrgaabo ahna maareeyaha cusub ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland ujeedada maanta xafladda koow waxay ka tahay oo uu nagu wareejiyay barasaabku sidaad arkayseen alaabtii ama qalabkii ay noo soo direen jaaliyada Soomaaliland ee Sweden qalabkaasi waxa weeye qalab runtii aad u muhiim ah oo nooc walba isugu jira waxaana runtii aad u ilaawi karayn sida qalabka kan computerka kan akubeetarkan iyo bahalkan caruurta lagu koriyo iyo dhammaan qalabka oo mid walba deena anfacay waxa weeye aad baan ugu mahadcelinayaa jaaliyada taasna waxa weeye waa alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta cisbitaalka wax ka maqan runtii ma jiraan waxaan kaliya oo looga baahan cisbitaalka in la helo shaqo wanaagsan oo dadka aynu u shaqeyno aad ugu mahadnaqayaa maamulkii aynu soo wada shaqeynay maamulaha cisbitaalka Ceyrgaabo madaxa shaqaalaha iyo dhammaan shaqaalaha weynahaba wixii intaynu soo wada shaqeynay waxaan leeyahay aad baan u mahadsantihiin gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Ceyrgaabo Saalax Ismaaciil Cabbaase iyo sidoo kale barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro aantan waxaan u rajaynayaa maareeyaha wadooyinka loo magacaabay inuu ka qaadan doono doorarku ka qaadan jiray gobolka iyo doorar ka sii wanaagsan tan uu tagona tanna ma ilaabayso reer cisbitaal ma ilaabayaan intuu la shaqeynayay halka uu soo gaarsiiyayna iyo iftiinka uu u sameeyay cisbitaalkiina waynu ognahay waa loo dhiibay xilka culus loo dhiibay waxaynu ugu ducaynaynaa in ilaahay u fududeeyo ayaynu ilaahay uga baryeynaa in ilaahay ku asturayno ilaahay uga baryeynaa cid kasta oo maanta arinta tan qalabka ka qayb qaadatay iyo intii kaantaba mar labaad ayaanu mahad celinay mid weeyaan inaynu qalabkii Allah u gargaaray inagu soo gargaareen jaaliyadeen reer Sweden aynu cisbitaalkii ku wareejino qoodii in soo gaarsiisay ciidii hawsha qayb ka soo qaatayna afiyaadibana inaynu halkan uga mahadnaqno idin kamana maaranay baahidu mar walba waa joogtay wixii ku soo dartay ku soo darabaan teena labaadna waxa weeye munaasabada xil wareejinta Axmed Yuusuf oo inaga dalacay
waxaa horta ogaataan axmed yuusuf intii uu joogay halkaas waxqabadkiisa inuu muuqday oo cusbitaalkeenu soo diray qofku markuu wax qabanayana waa la arkaa dawladdu waxay leedahay qaansay leedahay waa taa dabeetile halkaa aanu cid u daydoonay naga dalacsiisay cabdiraxmaan axmed ilsar star TV ceergaabo.